السلام عليكم أصحابتك soo dhawaada channelka P3CS maanta waxaynu rabnaa inaan sharaxno DDA algorithm DDA algorithm maxaa waay DDA algorithm wuxuu ku dhisan yahay calculating either y delta y ama delta x inaan xisaabino using above equation marka waxaa jiro two positive yani two cases aa jiraan markii la joogo DDA ama waxaa jira markii la joogo lineka waxaa jira two cases in slope-kaada uu noqdo positive ama inuu noqdo negative macnaheedu waxa waaye slope-kan markaa sawirayno this is x inta meeshan waa zero graafkeena intan x waaye meeshan one ka bilaabanay intana one ka bilaabanay haddii graafkeena dhankan kale u sawirayno oo meeshan x ay minus ka tahay slope-keena wuxuu noqonaa negative slope y-deena yani y markii la joogo maxaa la yirahdaa graafka hoos markii la joogo meeshan ay negative ka tahay intay negative ka tahay halka x inta ay positive ka tahay y-dana positive ka tahay inta yani y waxaa loo xisaabaa y waxa waaye top to bottom y inta y intana y inta y positive y inta y negative y inta x positive waaye intana x negative waaye marka haddii slope-keena uu qaybta negative ka aado labadan y iyo x uu aado waxaa leenahay negative slope haddii dhankan kale uu aadana waxaa leenahay positive slope so waa kanaa marka haddii yani with positive slope kala joognaa waxaa leenahay haddii slope-keena uu ka yaraado hal delta y ama delta x waxa u qaadataa one inay one tahay marka mar walba increasing baa plus one ku kordhin doontaa markan waxaa xisaabinaynaa y-da xisaabinaynaa slope-keena one ka yaryahay x increase ma ku dhacayo then meeshan maadaama slope-keena uu one ka yaryahay oo meeshan la joogo x-ta yani saan looma soconayo saana loo soconaa maadaama saan loo soconayo waxaa kordhaya waxa waaye y-deena keliya kordhayso marka x mar walba waxay la mid tahay one ay la mid tahay waxaa ka shaqeynaynaa waa y this is next decision parameter right so y key waxaa laga wadaa initial decision ama starting point meesha aan ka bilaawin root-ka meesha aan ka bilaawin y sub key plus one waxaa ka wadnaa yani next decision go-aankan go-aanka ku xiga macnaheeda waxa waaye waxaan sawirnay x y inta one ka bilaawin saana u soconay this y one marka koowaad aan sawirnay next decision markaa samaynayno y key ma ah y sub key waaye this y key waaye inta y key waa meesha laga bilaabayay laakiin kan wuxuu noqonaa y sub key plus next decision parameter so marka integer value na qaadanay from one yani from first point increasing by one until the final point is reached markii la daa so marka slope-kaada marka one ka yaraado calculate the y ayaa la xisaabinaa nearest point-na waa yani rounding lagu sameynaa haddii micnaheeda yani markaa sawirayna gaaraynay haddii inoo soo baxo 0.0 maadaama one uu ka yaray 0.6 rounding ama uu noo soo baxo 3.5 oo kale ama 4 waxaan sameynaynaa 3 u qaadano out of 3.5 baa noo soo baxay waxaan u qaadanaynaa 4 so that's the round so marka waxaa soo sheegnay hadaayi marka slope-keena ka yaryahay one waxaan dhahnay y-da increasing ku dhacaa x-tana decreasing ku dhacaa x-ta meesheeda ayay taagnaanay haddii slope-keena cagsigeeda u dhaco one uu ka weynaado reverse dhacaya rule-kii oo x iyo y ah then y waxa u qaadanay inay tahay state point maadaama yani graafkeena uu sidan increase garoowayo waxaa increasing ku dhacayo waa x halka y ay joogto initial pointigeeda haddii one u qaado initial pointigeeda yani mar walba x waxa waaye intervalkeena ama slope-keena wax ka xisaabin doonaa x aan ka xisaabin doonaa sida aan sheegna waxa waaye x sub k-na waxa waaye initial point x sub k plus one na waxa waaye next position to plot next position so xeertiin waa kana marka x sub k plus one waxay kula mid tahay x sub k one divided by slope-kaada qiimaha kusoo baxay x-tiida qiimaha haystay slope-kaada one u qaybi tii horena waxay ahayd y sub k waxaa lagu helaa plus one oo ah next decision-kii y sub k plus m slope-kaadii y sub k-da isku dar k marka inkastaada value kusoo baxan rounding ku sameeyay maadaama y aan rounding ku sameynayna ay ahayd 3.5 inoo soo baxo aan dhihinay 4 haddana x rounding lagu sameyn doonaa so waa kanaa marka
haddii slope-kaada waxaan dhahnay waxaa jira negative slope iyo positive slope. So haddii ninka waxaan soo xisaabinayna nin waxay ahaayeen positive slope ay ahaayeen. Haddii yacni uu noqdo slope-keena negative maxaa isticmaalaynaa qaacida noocaa isticmaalaynaa. Delta y hadday markaa dhihina haddii y-daada ay increasing yani slope-kaada haddii dhanka y uu kordhayo x-taada mar walba yani state point ay joogtaa x-taada waxaa dhihina 1 ay la mid tahay markii la joogo positive. Hadda negative la joogaa waxay noqonee -1 ay noqonee. Marka la joogo x haddii slope-kaada uu kordhayo dhankan x haddii uu kordhayo waxaa dhihina y waxay la mid tahay delta y waxay la mid tahay 1 maanta delta y waxay la mid noqonee -1 cagsigeedii waaye. So marka slope-ka positive y markaa xisaabinayna waxaa dhihaynay y sub k plus 1 equal y sub k plus m. So negative slope muxuu noqonaa meeshaan negative ka dhig. Marka xisaabiyaynay x sub k plus 1 oo marka slope-keena x uu kordhayo waxaa dhihaynay x sub k plus 1 divided by m meeshaan minus ka dhig ayadana sidaasaa ku xisaabi doonaa. So waa kana haddii slope-kaada uu ka yaraado hal oo positive uu yahay labadan qaacida adeegso. Haddii uu negative lehna labadan qaacida adeegso oo ah maxaa la yidhahdaa hadduu ka weyn yahay 1